بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والعيال كسر هذا وإن شاء الله تعالى مقطع ونكسن أن لو ذاك دونا وكصابسا قرق النبي عليه الصلاة والسلام. ولا اليالسان أنها قرقوا وصل لقى أما أساسك bulshadu ama ubadka meeshu ka soo baxo waa guriga madaahirta u qurxan iyo muuqaalada u qurxan oo nabi maxamed gurigiisa kamid calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mid xaasaskiisa la wadaago dhibka haysto iyo walwalka haysto. wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam mid fahmo xaaskiisa qaabka u dhaqanto iyo waxay ku fikirto iyo say tahay. bal aan dhageysanno hooyadan Aisha radhiyallahu anha ardaha ayadoo leedahay asoo nabiga ku dhahay calayhi salaatu wasalaam, Aisha waxaan garanayaa xilliga aad عليسان تاي هي حلقة هرال إيجا تاي وحن قرنا يا حلقة هرال إيجا تاي حلقة عليسان تاي مركزي عايشة الله يبتي سؤال شيء النبي جودي عليه الصلاة وركو النبي كوي عليه الصلاة والسلام مركزي حكتري أو سيدات قرنا يسرسوك إله يو مركان كو عليسان ما كو فرح سنة مركز النبي وحده صلى الله عليه وسلم وحن كو قرنا يا مركز دي فرح سنة تاي واد فرحات دريم يسد يجعل أيه يسد وحد يتراضى مركز دارن يسد وحن كو دارتي ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. markii laakiin aad careysan tahay ama aad raali iga ahayn waxaad leedahay waxaan ku dhaartay rabbigeena Ibraahim. markaas Aisha radhiyallahu anha wardaha ha rasuulka Ilaahay adigu magacaada mooyaan wax kale kama tago magacaada mooyaan wax kale kama tago bal arag rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam asoo hogaamiyaha ummadda ah asoo rasuulka Ilaahay asoo afdal khalqi ah hadana wuxuu ahaa mid fahma xaaskiisa waxay dareenkeeda iyo nafsadeeda iyo wax ay walwalka hayso ama wax ay ku fikirayso ay markii raali ka tahay markii ay raali ka ahayn. nabiga عليه الصلاة والسلام wuxuu ahaa xaaskiisa mid u dhow oo la wadaago dhibka haysto fahmo xaaladda ku sugan yihiin hadii faraxsan yihiin hadii murugaysan yihiin hadii raali ka yihiin hadii raali ka ahayn. guriyaha waxa u badan oo farxadda soo jiido iyo sheeg jacaylka waxa kamid isfahanka labada qof lamaanaha ah ee isku hayaan. waxa su'aal marka xaaska adigu ma fahansan tahay xaaska ninkeeda ma fahansan tahay isfahanku waa shay qaali ah qof kastana nafta ay fahanto ay raacdaa. نبي مركب هو عليه الصلاة والسلام من حاسك سفهمه حلقة عريسان تهي يحلقي أي إسان عريسنين وحلقي يابا أنا الله يابتنا حنسوء فهمي عائشة رضي الله عنها وارضاها أي سيد تهي هلا يابا المحايا النبي عليه الصلاة والسلام أصوه جميعها أصوه دنا أرهم بدنا يكون حريين وحواها مد فهم حاسك سا أو حال كذا كبر قبو صارت علماء في لي النبي محمد وحكا قاعتي نلش هذه أنتم مدة للجوجي وحكا قاعتي مركي رالك تهي مركي رالك كين أيوة كقاعتي صارت إسفهمك وشيء قالي qofka labada qof hadii nolosha isfaham ku dhisan tahayna waa nolol raaxo iyo farxad leh. waxa jirtay macad ku yaalo Faransiiska ayaa wuxuu sameeyay tirakoob ama cilmi baaris 1989 ama 87 cilmi baaristaas oo ahayd in la ogaado guryaha iyo rag dadka isqabo qaabka wanaagsan ama xiriirka wanaagsan oo ka dhaxeeya ama inta isfahmayaan. waxa la soo maray dawlado fara badan qaarad ka soo qaarada kamid 3 dawlad ka qaateen. waxay soo mareen Jabaanka waxay ogaadeen ninka naagtiisa inuu fahmi karo boqolkiiba 87 naagta ninka fahmaysa boqolkiiba 89 waa laga soo tagay wadan badan la soo maray ilaa la yimid wadanka caalamul carabi ilaa la yimid oo la ogaaday natiijada soo baxday waxay caalamul carabi ee muslimiinta si guud waxa la yiri ninka naagtiisa waxay fahantaa naaguhu ninkooda waxay fahmaan caalamul muslimiinta 99.99 وأبا هل سنتي وحال كير أقول ما أكلمن إسفهان كده حياة أما قاب كفهمان من كان نايا نمك كفهمان لكن مشكلة واحد هاتي مركل أجاذي نينك عربي أما نينك مسلم قاب كفهم حرير كده حياة ناكتسا وحال أجاذي ناقص 3 -3 إنه هل حتى فهمين نينك عربي أما نينك مسلم كحاسكسا أما حوجا يجرتو كالفوانشو حاجة إسفهان كأي حاجة نلاشة dhibaatooyin maanta jiro guriyaha maanta dumayo ama ay sheeg guriyaha maanta ciriiriga farxad la'aanta ah waxa asaas u ah isfahan la'aan. labada qof hadii isfahmaan wax badan baa xal ismi karo horumar baa la gaari karaa farxad iyo jacayl ayaa la gaari karaa. laakiin hadii la isfahansanay noloshu ama fahanku adag yahay waxa imaanayo in dadka isfaham weeyaan in nolosha ay adkaato in isfahankii uu adkaado in marka kadib ay labada qof nolosha u kala tagaan. sidaa darteed waxa aad muhiim ah in aan ku dadaalno ama in la barto qaabka ninka naagta u fahmo naagta ninka u fahanto sunnada maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ahaa mid xaasaskiisa u fahmo nafsadooda waxay jeceshahay waxay nacabtahay waxay raali ka tahay waxay raali ka ahayn si noloshii u hagaagsanaato si noloshii horumar doonta nolosha loo raaco jacayl iyo barwaaqan lagu noolaado.
jinsiga dumarka waxaa lagu sheegaa inay yihiin jinsi adag bimacnaa jinsi fahamkoodu adag yahay jinsi ama dad isheeg qof si fudud aan lagu fahmi karin waa sax waa jinsi adag waxay u baahan tahay faham waqti badan u baahan tahay raggan waxa laga yaabaa in waqti badan gelinin inuu dadaal badan gelinin inuusan u rafaadin inuu fahmo xaaskiisa waxa hadda ka hor aabi iga sheekeeyay xafid Allah ta'ala nabi aadan iyo hooy xaawo markay geedka cuneen labadooda waxa laga soo dejiyay jannada markay geedka cuneen jannada laga soo dejiyay mid kasta waxa la dhigay meel gaar ah la dejiyay nabi ibraahim nabi aadan meel gaar ah lagu soo dejiyay hooy xaawona meel gaar ah lagu soo dejiyay waxay bilaawday markii ay soo raadiyeen nabi aadan soo raadiyay xaaskiisa xaawan ay raadiso ninkeedii aadam nabi aadan wuxuu ahaa maalintii mid raadiyay xaaskiisa habeenkan uu nisan jiray xaawo laakiin waxay ahayd habeen iyo maalin ninkeedii mid raadis aadam habeen maalin aadamow ku aawi aadamow aad raadinayso ilaahay markii ku kulmeen buurta Allah Carafa buurta Carafa Allah ay kulmeen calaamada qaar waxay Carafa waxa lagu bixiyay labadooda ayaa isku aqoonsaday darta Carafa lagu bixiyay markay kulmeen nabi aadan markuu arkay xaaskiisii farxad uu dareemay soo orday hab ayuu si laabtu saaray laakiin xaawo markay darantay nabi aadan inuu soo socdo way fariisatay dhulkii fariisatay markii ismarxabeeyeen kadib wuxuu ku yiri waa ku raadin jiray waa ku rafaaday waa waqti badan ay gashay waxa weeyaan waa ku xiiso hadal badan uu yiri markaas waxay tiri ayadu way xaawo anigu maxaan ka raadinaa adigu maxaan ka raadinaya dan kaamilin aniga kuma raadin jirin dan kaamalayn ay tiri waa ayadii habeen maal raadinaysay asaga maalin bas raadin jiray habeenku wanaagsan jiray ayadii laakiin habeen maal ayadii raadin jirtay markii aragtay waxa weeyaan in way isbedeshay hadalkaasna waa hadal Ilaahay subhanahu wa ta'ala dumarka ku abuuray inay waxay rabaan durba hore ka sheeganin in hore laga fahmin inay ay noqdaan dad adag qofkii fahma laakiin ay noloshooda raaxad ku noqoto sadarteed ninka waxa laga rabaa inuu xaaskiisa u fahmo uu u dhawaado jir ahaan iyo ruux ahaan waxay jeceshahay waxay nacabtahay waxay raali ka tahay waxay raali ka ahayn si nolosha u noqoto nolol farxad iyo nolol raareen ku dhisan Ilaahay waxa ka baray subhanahu wa ta'ala in nolosha ka dhigo nolol wanaagsan dhaxdeena rag dumarka is qabanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaxdooda dhigo isfahan iyo nolol wanaagsan aad ma santiin hada billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh